asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed oo ku biiray ciidanka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ciidamada ammaanka soomaaliya oo ka baadigoobaya magaalada baydhabo aadan madoobe oo ka cararay magaalada baydhabo iyo culays dhinaca amniga oo kala kulmayo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xaaladda siyaasadda ee galmudug oo cirka isku shareertay iyo danay oo weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud qodobadaas iyo qodobo kale xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka oo inta badan ka daawataan waama t v fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha ku leenahay bulshada kusoo biir janalka subscribe noo saar muuqaalka laygaree oo sheer garee wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta ka baxay magaalada baydhabo wararka laga helaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in uu ku biiray ciidanka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo ilyaas cali nuur ayaa waxa uu wataa ciidamo aada u tiro badan oo isaga markii hore istaaf u ahaa waxaana isaga iyo ciidamadiisu ay ku biireen ciidanka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen walow ay markii hore kala aragti duwanaayeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan koonfur galbeed ayaa la sheegayaa inay baadi goobayaan oo ay ka baadhayaan gudaha magaalada baydhabo balse waxaa la sheegay xilli sii horreysaba inuu ka baxay gudaha magaalada baydhabo isagoo xitaa ka tegay gaadiidkiisa ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo ayaa baadhitaan xoogan ku sameeyey guryihiisa iyadoo la sheegay in taleefoonadiisa gacanta kulligood ay wada dansan yihiin ilaa iyo haddana lama oga meesha uu weli sida saxda uga sugan yahay hase ahaatee dadka ayaa inta badan waxay hadal hayaan in ninkaasi uu u dhaqaajiyey dhinaca cabdicasiis xasan maxamed laftagareen garabka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ee ku sugan duleedka baydhabo weli kamaysan hadlin ninkan iyo ciidankiisa in ay soo gaareen oo ay ka mid noqdeen dadka ay kusoo dhaweynayaan duleedka magaalada baydhabo hase ahaatee shalay ayay ahayd markii ciidamada laftagareen ay ku biireen ciidamo ka kala yimid magaalada baydhabo iyo weliba diisoon ninkanna waxaa la filayaa saacadaha soo socda in si weyn loogu soo dhaweeyo furimaha dagaalka ee dib u xoreynta ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ee uu hogaaminayo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynihii sida xoogga looga saaray koonfur galbeed soomaaliya wixii warar ah ee qodobkani kasoo kordha kala soco waama t v aadan madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u kicitamay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa la sheegayaa in aadan madoobe cadaadiska ugu badan uu kala kulmayo ciidanka jooga duleedka magaalada baydhabo ee cabdicasiis xasan maxamed laftagareen haddana uu u orday sidii uu xasan sheekh maxamuud uga codsan lahaa taageero ciidan iyo weliba mid maaliyadeed taasi oo keentay inuu si degdega uga baxo koonfur galbeed soomaaliya aadan madoobe ayaa la sheegayaa in cadaadis xoogan uu ka haysto dhinaca bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya oo aysan ku qanacsanayn iyadoo oo bulshadii kala duwaneyd ee koonfur galbeed soomaaliya ay maalinba maalinta ka dambeysa ay u baxsanayaan ciidamada duurka jooga ee uu hogaaminayo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen taasi oo dhabarjab ku noqotay sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo loo dhaariyey hogaanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya aadan madoobe ayaa waxa uu kala hadli doonaa xasan sheekh maxamuud caqabadaha waaweyn ee ka haysta gudaha koonfur galbeed soomaaliya iyo sida dadkii reer koonfur galbeed aysan u ogolayn xukunka isaga hadda loo dhiibay ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ayaanse la ogeyn wax badan inuu ku biirin karo maadaama aadan madoobena uu ka dhigay hogaanka koonfur galbeed ciidamadii ugu badnaana uu geeyey magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed soomaaliya hase ahaatee aadan madoobe intaasiba waxba waa ugu fillaan weysay mana haysto taageero iyo weliba tamar kale oo maanta uu ku caabiyo ciidamada cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo wuxuuna ku jiraa cabsidii ugu badnayd oo wuxuu ka cabsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan laga qabsado deegaano badan oo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya maadaama ay diyaar garow xoogan ay ku jiraan ciidamada cabdicasiis xasan maxamed laftagareen maalin walbana ciidamadii hor leh ay ka baxayaan dhinaca aadan madoobe oo ay u gelayaan dhinaca cabdicasiis xasan maxamed laftagareen mushkiladani ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn sida uu ku xallin doono sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ka tegay xilkii guddoomiyaha baarlamaanka noqdayna hogaanka koonfur galbeed ee xisbiga j s b ee koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale hogaamiyahan ayaa waxa uu si gaara u bogaadiyey hanaankii doorasho ee isaga lagu doortay wuxuuna sheegay in doorashadani ay ahayd doorasho hufan oo wadajir ah sidaas darteedna shacabka reer koonfur galbeed ay ku soo doorteen
si xor iyo xalaal ah oo weliba dimuqraadiyad ay ku dheehan tahay. Hogaamiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku adkeysanaya in maamulka Koonfur Galbeed uu mudnaan gaar ah siin doono xoojinta dhinaca ammaanka, isagoo oo ku doodaya inuu soo afjari doono ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo weliba dadka ka aragtida duwan ee isaga diidan. Ugu dambeyntiina wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya si loo gaaro horumar waara iyo xasilooni siyaasadeed oo ka dhacda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ahaatee Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi hadda kama muuqato oo waxay u eg tahay inay Koonfur Galbeed Soomaaliya ay gashay xaalad adag iyo marxalad cusub oo aysan horey u wajihin. Haddii aan intaasi kaga nimaano wararka Koonfur Galbeed, iminkana Galmudug waxaa mar kale cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa maamulka Galmudug iyo Villa Soomaaliya, iyadoo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay qaabka loo wajahayo doorashada Galmudug. Mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen faragelin siyaasadeed iyo cadaadis lagu saarayo maamulka uu hogaaminayo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, halka Villa Soomaaliya ay sheegtay inay ka shaqaynayso mideynta iyo xasiloonida Galmudug. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa si adag uga hortimid doorasho dhinac u janjeerta oo laga qabto deegaanadeeda, iyadoo ku adkeysatay in doorashadu ay noqoto mid ay ku wada jiraan dhammaan saamilada siyaasadda ee Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo mar labaad u taagan xilka madaxweynaha Galmudug ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii uu xubno ugu yeelan lahaa guddiga doorashooyinka. Arrintaasi oo la fahansan yahay in Villa Soomaaliya ay ka biyo diidan tahay. Qaab dhismeedka guddiga doorashooyinka ayaa noqday caqabadda ugu weyn ee hareysay doorashada Galmudug, iyadoo dhinacyadu si weyn ay u kala aragti duwan yihiin cidda maamulaysa hanaanka doorashada. Dhinaca kale, agaasimaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa shalay wada hadallo gaar ah waxa uu la yeeshay musharaxa Galmudug ee xisbiga JSP Liibaan Axmed Xasan, waxaana kulanka ku wehelinayay odayaal iyo waxgarad ka tirsan beeshiisa. Wararka laga helayo kulankaasi ayaa sheegaya in labada dhinacba ay isku fahmeen arrimo la xiriira doorashada Galmudug iyo jihada siyaasadda ee Galmudug. Mahad Maxamed Salaad ayaa odayaasha u sheegay inuusan jirin wax khilaaf ah oo kala dhex Liibaan Axmed oo loo yaqaano Liibaan Shuluq, isla markaana laga gudbay dhacdooyinkii hore iyo weliba khilaafaadkii hore. Soo dhawaantan ayaa timid kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad ay ka wada hadleen arrinta ama faylka Galmudug, isla markaana ay isla fahmeen arrimaha doorashooyinka ee Galmudug. Sidaas darteed hadda waxaa u muuqataa in seeftu ay dul taallo ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ay u eg tahay in uu mari doono halkii uu maray Laftagareen. Aadan Madoobaha cusubna uu noqon doono Liibaan Shuluq. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ku eedeeyay inuu abuurayo kooxo burcadbadeed ah oo hubeysan oo weeraro ku qaada maraakiibta isticmaasha biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga. Dane oo ka hadlayay furitaanka kala fadhiga baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu burburiyay nidaamkii federaalka ahaa ee lagu heshiiyey, isla markaana uu duulaan ku qaaday dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan aqbali doonin wax uu ku tilmaamay afduub siyaasadeed iyo sharci darro lagu sameynayo hanaanka dowladnimada Soomaaliya. Siciid Cabdulaahi Dane ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay mar walba hormuud u tahay siyaasad loo dhan yahay iyo weliba dimuqraadiyad iyo doorasho si xor ah u dhacda. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weeraro hubeysan ay ka geysatay deegaano ay ka mid tahay Ras Kamboni, halka uu sheegay in lagu dilay dad rayid ah oo Soomaaliyeed. Dane ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dane uu khalkhal siyaasadeed iyo afgembi uu ka sameeyay magaalada Baydhabo, isagoo oo meesha ka saaray nidaamkii maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland ayaa cambaareeyay tallaabooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhanka ah siyaasadda mucaaradka, isagoo sheegay in Muqdisho ay ka socdaan xarig, barakicin iyo weliba caburin siyaasadeed. Hadalka Siciid Cabdulaahi Dane ayaa ku soo aadaya xilli ay sii xoogeysanayaan khilaafka dhinaca siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba Siciid Cabdulaahi Dane. Daawadayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii xulashada wararka oo si toos ah uga daawanayseen Waama TV. Fadlan daawada haddaad ku cusub tahay barahan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka, subscribe noo saar, muuqaalka like gare oo share gare.